Asalaamu calaykum dhalinyaro, soo dhawaada waa Macalin Maxamuud. Casharkan waxaynu ku qaadanay 10kan erey oo meesha inoo saaran. Ereyga koowaad eradicate. Eradicate waa ciribtir. Waxa kani inaad ciribtirtid. Yes. For example, scientists, saynisyahanada are working or are trying waxay isku dayayaan to eradicate this disease. Inay ciribtiraan cudurka kan. Yes, eradicate. Wipe out ayay isku macno yihiin. Ama abolish. Ereyga labaad establish. Establish waa aasasid. Found camal waa. Yes, establish. For example, they will establish a new school in town. Waxay bilaabi doonaan ama waxay asaasi doonaan iskuul cusub ayay magaalada ka asaasi doonaan. Eventual. Eventual waa ugu dambeyn. Finally camal waa. Yes. For example, the eventual outcome yani natiijada ugu dambeysta will depend on their performance. Waxay ku xirnaan doontaa bandhigooda. Yes. Ereyga afraad exquisite waa very beautiful. Wax markay aad u qurux badan yihiin la yiraahdaa exquisite. For example, she wore waxay xirneed an exquisite necklace. Yani necklace waxaa la yiraahdaa bahasha dhuunta lagu xirto. Yes. magaceeda waa igambiyey necklace. Yes, necklace. aad iyo aad. Extravagant. Extravagant yani katiin baa la yiraahdaa. Sorry. Necklace waa katiinkan dhuunta ay gabdhaha gashtaan. Extravagant waa israaf. Wax inay aad looga badbadiyo. aad yani lacag fara badan loogu bixiyo. Yani inta loogu talagalay mee 10 jibaarkeed. Extravagant. Yes. Israaf waa marka. It's a negative character. Yani waa negative word. Yes. In wax intee hanti ama maalinta lagu bixiyo heer yani intii loo baahnaa ka badan la bixiyo dee nixta la qasaariya la yiraahdaa extravagant. Yes. For example, they live an extravagant life. Waxay ku nool yihiin nolol israaf ah. Yes, hantida iyo lacagta ay beeldareynayaan aad bay u fara badan tahay. Ereyga lixaad fair. Fair waa sinaan ama cadaalad. Yes. Equity ama just ayay isku mid yihiin cadaalad. Opposite-keedana wuxuu noqonayaa unfair. Unfair. Ereyga toddobaad fanatic. Fanatic waxaa la yiraahdaa qofka wax markuu aad uga badbadinayo. Ka badbadis xad dhaaf ah la yiraahdaa fanatic. For example, he is a sport fanatic. Isaga waa qof ciyaaraha taageero waliba heer uu ka badbadinayo yani madaxay ka qabsata. Yes. Ama for example, don't be a fanatic. Don't love this thing this much. Waxa kani aad yani aad kan ka badbadinta ha u jeclaan. Fanatic ayaa la yiraahdaa marka. Extremist camal yani xad dhaaf. Fancy. Fancy waa wax maxay ahayd iyadana waxaa la yiraahdaa decorative ama elaborate. Yes. For example, she lives in a fancy house. Waxay degan tahay guri aad u qurux badan, aad u soo jiidasho badan. Fancy house. Ama haddii kale he dresses in a fancy way. Qaab aad u qurux badan oo aad u soo jiidasho leh ayuu u labistaa. Grace. Grace waxaa la yiraahdaa naxariis. Yes, grace. Mercy way isku macno yihiin naxariis. aad iyo aad. For example, his graceful gesture impressed everyone. Yani daymadiisa naxariista leh baa qof walba cajab geliya. Grim. Grim waa murugo. Yes. Wax markay yani gloomy yihiin ama depressing murugo cajil murugo u daaran yahay la yiraahdaa grim. Yes. The future looked grim after the disaster. Yani mustaqbalka mid murug badan u ekaa musiibada kadib. Casharka intaas ayuu ku egahay. Thank you for listening. God bless you and have a beautiful day. Bye bye.